بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ جستيار دلهان تيمبا halkani waa radio toga herar ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan ula yeelanay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta Marwe Safiya Sulekha Daawud oo aanu kula xiriirnay khadka telefoonka iyadoo ku sugan dalka Sultanka Imaaraadka Carabta waxaana ay ka hadashay qodobo dhowr ah oo ay ugu horeyso taageerayaashii dhawaan ku soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID iyo sida ay ka xisbi ahaan uga go'an tahay inay ka shaqeeyaan horumarka guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwe Safiya Sulekha Daawud oo amuurahaasi iyo amuuro kaleba ka hadlaysa waxa ay tiri herar aad iyo aad baan u dhawahay waad mahadsan tahay sida aad ila soo xidhiidhaan iyo sida dhiirigelinta leh ee aad had iyo goor ugu heelan tihiin dalkiina hooyo haddaan in yar dib u milicsado runtii aad iyo aad ayaanu u soo dhawaynaynaa oo aan ugu hanweynahay gacmo furanna aan ku soo dhawaynaynaa waliba gaar ahaan waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa garabka ka yimi xisbigii kulmiye dumarka marwooyinka ah ee sharafta badan ee nagu soo biiray ee ilaa laanta cawda ka yimi aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa haddaan nahay garabkii UCID ee qurba joogta iyo qolqol joogtaba aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waxa kale oo aad u soo dhawaynaya iyagana si aad iyo aad u qiimo badan aan ugu soo dhawaynayaa dhalinyaradii ku soo biirtay ee gabiilay iyaguna ka soo hadlay ee xagga gabiilay ka yimi aad baan iyagana u soo dhawaynayaa waxa kale oo aad u soo dhawaynayaa caasimada Finland ee Helsinki dhalinyaro fara badan oo iyaguna ku soo biiray xisbiga oo gartay halka danta qaranka ku jirto waayo xisbiga maanta wuxuu u taagan yahay waa gurmad iyo badbaadadii qaranka Soomaaliland waayo qarankii baa hadda jar ka sii laalaada sida daraadeed in dheer garadka iyo aqoon-yahanka iyo inta wax garanaysa cilmi leh ama qaranka dan kalihi way arkayaan halkay sartu ka qurunsan tahay marka waxa weeyaan aad iyo aad baan horta u soo dhawaynaynaa dadweynaha aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa talabaad waa runta xisbiga imika uu qarbu u kacay si fiican buu waxana qaadsan yahay xafiisyo fara badan buu hadda furay haddana qaar kale badan buu furayaa dhalinyaro fara badan iyo dadweyne fara badan oo ku soo socda iyo mawjado ku soo fool leh oo fara badan oo ku soo burqamaya ayaa jira laakiin xisbigu diyaar buu u yahay inuu cidii u timaadaba welcome siiyo laakiin cidaasi ay noqoto cid qaranka dhisaysa ee qaranka dan kale ee jecel qarannimadu waxa ay tahay qiimaheeda ee fahamsan dawladnimadu markay qaran tahay ayay qiimo leedahay laakiin marka ay reer tahay ama ay beel tahay ama talaaya reer hebel ay noqoto halka qarannimadii way ku baabaaday marka anagu waxaan u taaganahay kuwii qaranka ururin lahaa isu keeni lahaa meel isugu keeni lahaa ilaa galbeed ilaa bari way ka hilaacday UCID waana qaran waana gurmadkii qaranka abaara ka jira qaar ka mid ah gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland inta badan xisbiyada mucaaradka waxa lagu eedeeyaa ama xisbiga muxaafidka uu ku eedeeyaa in kaliya iyagu mucaaradadoodu ay tahay in doorashada ay ka hadlaan oo dadkan abaaraysan aanay ka hadlin hadii aad in xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID maxaad ka qayb qaadateen amaba haday noqoto baaqaad dirtaan amaba taageertaan dadka abaaruhu ku habsadeen ee ku nool guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland wanaagsan su'aashaad weydiisay waa runtii waa wax ku oola waana wax jira abaaruhu ilaahay waxaan ka baryayaa isaga miciin diineeda oo awoodda iska leh in ilaahay horta raxmaadka ummadda haraadan iyo xoolaha iyo dhulka abaarta hayse iyo haraadku in ilaahay raxmaadka u furo oo ilaahay wax khayr qaba awl khayr qaba ilaahay degdeg ugu soo diro talabaad waxa weeyaan gudoomiyahaygu waxa weeyaan kii kaliya ahaa kuweedu dhoofay ee maxay tolay u soo bandhigay dhibaatada iyo haraadka nahaya sidoo kale marka uu yimaado Imaaraadka ma yareysto inta wuxuu gacan gurmad iyo xilif ugu jira in uu maxay tolay abaaraha iyo dalka dhibaatada haysata inuu soo bandhigo waxa uu diyaaradaha badan inta badan u raacaa uu adduunyada dibadaheeda inta korka u wareegaya uu kalba wadan u tagaya wala jeedadeedu waxa weeyaan qaranka Soomaaliland
sidii uu gurmad ugu raadin lahaa halka labada xisbi ee kale murashaxiintooduna ay ku foogan yihiin waa laygu soo biirayay xaflad baan dhigayaayay bashbashyo baraaraan ku jiraayay ayagoo dalka gudihiisii jooga oo aanay laakiin war u haynin duleedka waxa ka dhacaya iyo dadka haraadan iyo dadka maxay tahay abaaruhu gam ka siiyeen ayagoon dan ka lahayn ayuu asagu habeen iyo maalin guuro ugu jiraa uu diyaarado u saaran yahay sidii Soomaaliland adduunka uga soo iibin lahaa uu oran la dalkaasaanunay gacan hana la siiyo hoosa nala soo eego marka halka horta u cudiye ku kala duwan yihiin labada xisbi ee kale waa halkaas taana abaalka Ilaahay baa laga helaa bini aadamku runtii abaalka ma celiyo oo talaaya reer hebel ay ku mashquulsan yahay laakiin Ilaahay buu abaalkiisa ka helaya ta kale waxa weeyaan abaaraha qofna kama yaraysanayo togbataagii buu rugmada qof waliba abaaraha uu heelan yahay shacabku uu heelan yahay dibadii gudo haddaanu u bidnahay iyo haddii ay public caadiga tahayba abaaraha aad baa loogu soo jeedaa aad baa qof walba doonaya inuu macaawinadiisa ka geysto marka maxay tahay aad iyo aad ayaa runtii abaarahaasi ay noo dhibeen oo ay dadkoo dhan oo xanuunkooda waa la wada dareensan yahay marka insha Allah ilaahay baa inaga dulqaadi kara ilaahay baana maxay tahay in dib loogu noqdo la baryo ay tahay roob doonta la badiyo oo diinta xagga diinta loo sii jeesto laakiin xagga qabiil meel inama geynayo qaranku burburinaya dalku burburinaya dadku kale eriyaya marka ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay wax khayr qabay noo soo diro ugu dambeyntii Safiya Sulaka Daawud dad badan baa ka dhageysanaya radio Toga Herar waa maxay fariinta aad gudbinayso haddii aad tahay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaan u gudbinayaa dadka idageysanaya waa dadka qaranka iska leh waa dadkan qarankan ku soo taabay ee Ilaahay ku abuuray years degana waa dadkii dhibaatadan ogaa u soo maray waa dadkii duurka u galay gaajada iyo haraadka u maray waa dadkii dhulkooda dib u soo ceshaday mar walbana waa inay ka fikiraan dalka iyo dadka iyo jiilka dambe ee imanaya waa inay dib u eegaan waa inay ogaadaan dantu maxay tahay dantu xagee ku jirtaa danteenu ma waxay ku jirtaa talaaya reer hebel ay in hebel inoo soo saara kaasaynu isku qabiilnahay bise waxay ku jirtaa talaaya qaranaay iyo qaranka inoo eega amniga iyo nabadgelyada eega caafimaadka eega baahada dadka danyarta ah eega taasaan oran lahaa dib u eega oo ilaahayna dib ugu noqda oo toobadiisa u celiya oo ilaahay inaad dad walaala tihiin aqoonsanaada talaaya reer hebel ay meel kuma geynayso jannadiina kuma tagaysid laakiin qarankeena seenu badbaadinaa seenu nolosheena u maaraynaa sidee danyarta aan maanta dabka shidanin hoos loogu eegaa taa waa in laga fikiraa laakiin hadday inuunu tira anigu aan noolaado inta kale waxba igama gelin markaa qarankaagii waad burburinaysaa marka waxaan lahaa dadweynaha shicibka ah nabadgelyadiina iyo danta qaranka hoos u eega laakiin ka reer hebel igu doortale waxaan oran lahaa jar mar dambe ha ka dhicina guulna waan u rajaynayaa iyo ilaahay roobka inoo shuba iyo raxmad ilaahay idankii iyaga oo noo khayr qabto barwaaqale allaha siiyo ummadana ha u soo sakhiro guud ahaan dhegeystayaal waraysigii koobnaa ee aan la yeelanay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta Marwe Safiya Sulaka Daawud intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan waraysi ka lamid ah ku kulmi doono waxaan ugu dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo ورب صعد وعيد لي لا بعي